أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت تاريخ تهاي لحدي جولاي 2024 كوميشن الدورشوين قرن كحسيدين يا ورصحافات كان وهرين وجدد ورصحافات كان وإن كوميشن الدورشوين قرن كبرشوين ترى سومالي لان للسعودية هلك أي مريان هؤلاء الديار جرو الدورشوين كإسكوسيت كان مدحتوية يحسبية قرنك كوميشن الدورشوين قرن كحسيد جوكته dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo daneeyaasha arrimaha doorashooyinka ula wadaagi doona kolba halka ay marayaan shaqada doorashadu haddaba afar qodob ayaanu maanta halkan ka sii deyn doonaa hadii la ka dhigo qodobka koobaad waxa weeye qorshaha doorashada diyaar garowga iyo hawlgalka doorashada komishanka doorashooyinku wuxuu sameeyay jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagayo hawlaha diyaar garowga doorashooyinka kaas oo ilaa iminka sidii loo qorsheeyay u socda komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhammaan agabka iyo sanaaduuqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican dhawaan komishanka doorashooyinka qaranku waxa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarada wacyigelinta iyo hawlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo arinta miisaaniyadii doorashooyinka waxa gacanta komishanka doorashooyinka soo galay ama account komishanka doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo badh inta dhiman komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumaddu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorsheysan komishanka doorashooyinka qaranku sidoo kale waxa ay wada hadal u socdaa qaran bixiyaasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka haddaba komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u cadeynaya in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay aan hore u cayinay oo ah 13 November 2024 hadii Ilaahay ka dhigo isla markaana komishanka doorashooyinku uu farsamo ahaan u diyaarsan yahay in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgeliyo doorasho hufan xor iyo xalaal ah qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyaasha biometriga ee loo soo gaabiyo BVVS nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo xeer number 91 2023 qodobkiisa 118 waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu dhiiban codkiisa hanaankani wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah kow hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buugga diiwaanka codbixiyaha ee goobta qaabkaas oo manual iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha doorka komishanka doorashooyinka qaranka ee arintan iyo halka ay marayaan waxa weeye sida uu dhigayo xeer number 91 2023 qodobkiisa 108 komishanka doorashooyinka qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo ka go'aan gaaridda agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono daneeyaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin kaas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu go'aan ku gaaray bulshadana u cadeynaya in hanaanka farsamo ee BVVS ku marnaba noqon doonin mid doorashada dib u dhiga qodobka saddexaad waa wada shaqaynta daneeyaasha doorashooyinka sida uu dhigayo xeer number 91 2023 qodobkiisa 12aad komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyay xeer hoosaadka guddi hawleedka xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aanu dhawaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda xeer hoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay guddi hawleedka ama task force komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyay xeer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhawaan loo soo bandhigi doono isagana daneeyaasha si ay
taladooda ugu kordhiyaan sida uu dhigayo xeer number 91 qodobkiisa 20aad komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyay xeer nidaamiyaha guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka xeerkaas oo lagu aasaasayo guddi madax bannaan oo xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda ku dabagelaya u hoggaansanaanta iyo habdhaqanka xeerarka doorashooyinka saxaafadda ururada bulshada iyo dadweynaha komishanka doorashooyinka qaranku isaga oo ku dadaalaya daahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah waxaanu 2 kulan oo gooni ah u qabanay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu komishanku u soo bandhigay qorshaha guud iyo hawlgelinta doorashooyinka 2024 detailed timeline and operational plan oo aanu sharaxnay dhammaan shaqooyinka komishanka doorashooyinka qaranku qabanayo oo faahfaahsan min bilow ilaa dhamaadka doorashooyinka waxay sidoo kale saxaafadda iyo ururada bulshadu la wadaageen komishanka doorashooyinka qaranka talooyinkooda ku saabsan guud ahaan doorashooyinka iyo gaar ahaan talooyin ku saabsan wada shaqaynta saxaafadda iyo ururada bulshada iyo komishanka doorashooyinka qaranka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu dhammaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda saxaafadda aqoon-yahanka ururada bulshada dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay khusayso uga digaya in la farageliyo shaqada komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee liddi ku ah amniga iyo habsami socodka hanaanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka ayaa u xil saaran dhammaan shaqada doorashooyinka sidaa daraadeed komishanka doorashooyinka qaranka oo kaliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka ciddii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa tallaabo ku habboon gabagabadii iyo gunaanadkii xaqiijin komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu u xaqiijinayaa guud ahaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland in doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranku ay ku qabsoomi doonaan xilligii loo qorsheeyay ee 13 November 2024 haddii Ilaahay ka dhigo bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad u cadeynaynaa in dhammaan farsamo iyo dhaqaalaba ay komishanka doorashooyinku u diyaarsan yihiin sidaa daraadeed barbarkay ka baxda waa bakayla qaleen ugu dambeyn waxaanu Ilaahay ka baryeynaa inuu xilka iyo shaqada qaranka nagu astiro noona fududeeyo dadweynahan waxaanu ka codsanaynaa inay nagu taageeraan nooguna soo duceeyaan in alle nagu guuleeyo hirgelinta doorashooyinka iyo hiigsiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wabillahi tawfiiq